ورحمة الله وبركاته خير سو dhawaada dhamaantiin waan salaamay waa walaalkii maxamed jaamac insha Allah taala maanta waxyaabo far badan oo muhiim ah in ka hadli doonaa ana insha Allah waxaanu si wanaagsan u wada falqayn doonaa hadalkii ay ku hadashay treasury-ga wadanka Mareykanka khisaanada wadanka Mareykanka haysata taas oo waxyaabo far badan oo muhiim ah ka hadashay ilaa 5 qodob 6 qodob insha Allah taala waxyaabahaas iyo waxyaabo far badan insha Allah taala basna falqayn doonaa maanta dad nagu cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad like iyo subscribe channelka saartid mar waxaan kaga hadalnaa waxyaabaha ku cusub financial worldka inta badanna waxaan ka hadalnaa cryptocurrency maadaama uu magaca channelka wax walba crypto uu yahay soo dhawaada qodobka ugu horeeya ee Janetina ay ka hadashay waxa kamid ah supportka inay support garaynayso SEC-da regulationskan waalan ay ku hayaan cryptocurrency-ga taas oo ay sheegtay inay tahay muhiim ina la sharciyeeyo waxyaabo fara badan oo dhinaca crypto ka jira taasina waxay tusaa runtii ina support weyn SEC-du maartay ay ka heleen khisaanada wadanka Mareykanka gaar ahaanna madaxweynaha wadanka Mareykanka imanka waa kan sharciyeyn maartay adag ku haya dhinaca cryptocurrency-ga regulationskana runtii waxaan u maleynay inay si adkeyn doonaan ayaan dhaweydna waxaanu aragnay ina dhowr hedge funds oo waaweyn inay qadimeen waxa la yiraahdo ETFs amba spot ETFs oo halka ay doonayaan maartay inay investoradooda waaweyn u soo gudbiyaan khiyaarka ah inay maalgashadaan bitcoin-ka maadaama exchange-da institute-ka amba dadka maartay lacagaha far badan haysta ay ka baqaan inay la tacaamulaan dhowr week kadib markii ay hedge fund-yadu maartay ay qadimeen dalabkooda in ETF ay sameeyaan SEC-du way diiday taas oo maartay ay tiri waa inaad cadeymo dheeraada aad la timaadaan oo aad soo bedeshaan qaabkan aad wax u apply garayseen amba aad soo qadimteen xaalka ETF-ka iyo regulationska insha Allah taala soo dhamayso waynu eegnaa in runtii waxaanu aragnaa SEC-da iyo Janet Yellen ee guud ahaan xukuumadda imanka haysta wadanka Mareykanka inay ka soo horjeedaan cryptocurrency-ga qodobada kale haddaynu ka hadalno ee ku saabsan hadallada Janet Yellen ay ku hadashay waxa kamid ah commercial real estate-ka commercial real estate-na waxa looga jeedaa cimaaradaha waaweyn fasirada waaweyn ay qaataan taana hadii jeer waxay ka amaahdaan lacagaha ay cimaaradaha ku iibsadaan baanankana imanka lacag far badan ay ku leeyihiin fasirada waaweyn oo runtii imanka cimaaradaha ay qaateen maadaama xafiisyo iyo maartay dad inay ka kareeyaan ay ugu talagaleen imanka dadkii iyo xafiisyadii maartay laga guurayo oo intooda badan faaruq ay yihiin arrintaana waxa weeye mid aad iyo aad maartay cabsi looga qabo wadanka Mareykanka waayo cimaaradaha haddii lacagta lagu leeyahay investorada ay bixin kari waayaan dib waxa uu yeelanaya maartay hantida iyo cimaaradaha baankiina waxa ku qasbayn inuu ku iibiyaan lacago maartay khasaaro ah maadaama cid gasha aan lahayn imanka oo inta badan sidii COVID-kii markii laga yimi dadka intooda badan ay guryaha ka shaqeeyaan marka taasina waa arin aad iyo aad maartay cabsi looga qabo wadanka Mareykanka haday dhacdana qalqal weyn uu ku yeelanaysaa baanka wadanka Mareykanka Janet Yellen arinta kale ka hadashay waxa kamid ah baanka wadanka Mareykanka imanka waxa ku jira marxalad ah consolidation amba dhexdhexaada oo runtii aan la ogeyn waxa ka iman kara laga yaabo in baaran kale maartay ay si fashilmaan ayaan dhaweydna report waxa ku arkay baanka waaweyn ee wadanka Mareykanka khasaaro weyn ay kala kulmeen dhinaca bondska waxa looga jeedaa shahaadadaha investmentka ah amba deyminta ah ay amaahayaan wadanka Mareykanka taasoo muddada dheer hadii jeer ay qaataan maadaama imka faa'iidada muddada gaaban ay badan tahay wadanka Mareykanka oo interest rate-ka ah oo 5.25% ay tahay laga yaabaa inay sii korodho oo ilaa 6% ay gaadho taa inta badan investorada waxay sameeyaan bondska muddada gaaban ay qaataan oo muddada dhaadheer sida 10 sanadood 20 30 inta badan way iska daayaan taa faa'iidada maartay muddada yar leh maadaama imka ay badan tahay ay qaataan inta badan marka taana runtii baanka waa saameynaysaa khasaaro waaweyn imka baanka wadanka Mareykanka waaweyn waa ka gaadheen gaar ahaan afarta waaweyn ka ugu yar baa $30 bilyan khasaaro imka ku jira qodob kale ay ka hadashay waxa kamid ah baanku imka waxay u diyaar garoobayaan inay sameeyaan wax la yiraahdo restructuring oo dib ay u eegaan qaabka ay u shaqeynayaan iyo qaabka ay wax u faa'iidayaan maadaama dhowr bank imka ilaa 5 bank lagu qiyaasayo inay ayagu halka bankrupt oo ku dhaceen oo halka ayagu ay ka baxeen shaashada qaarkoodna ay la wareegeen baanka waaweyn arinta kale ugu dambaysa ay ka hadashay waxay sheegaysaa ina imanka ay jirto capital liquidity amba lacagaha baanka ay haystaan iyo cashka ay haystaan inay maartay khatar ay ku jirto arintana xaqiiqatan baanku maadaama uu door weyn ka ciyaarayo iqtisaadka dawladda inay xaqiiqatan mashaakil far badan ay ka yimaadaan dhinaca baanka ayaa laga baqayaa imanka xitaa